انت على ورسايا صاحب كيف waxaan rabaa su'aal oo ninka dhalinyarada na weydiiyey oo ku saabsan dalka Norway lacagta uu bixiyo waxaan rabaa inaan wax yar aan sharxo sideeda waxaa jiro xiriir caalami ah oo dalalka adduunka oo dhan ka dhaxeeya dalalkaasi marka waa loo sameeyaa waliba dalalka burburka oo dagaalada sokeeyay u ka dhacay ama siyaasiyan u burburay si ay u soo noolaadaan oo ay beesha markaas caalamka ay dib ugu soo noqdaan yaa waxa loo sameeyaa in yabo wax la yiraahdo oo dal walba sanduuqa markaas jira oo World Bank ama IMF ta ay leedahay lacag lagu shubaa lacagtaas marka maaha in la qaadanayo lacagtaas dib bay kugu soo noqonaysaa laakiin albaabi furaysa waxay albaab furaysa hadda waxa kamid ah haddaan tusaale soo qaadan wadanka Sri Lanka kamid ah dalka Soomaaliya sanduuqiisa lacagta ku shubay Norway kamid ah oo IMF macnaha waxay albaab bay furaysaa albaabkaas marka waxa suurta gelinayaa in dalkaas dib wax loogu qabto oo wax loogu sameeyo ay suurta gelinaysaa waxa hadda la sheegay oo ninka madaxweynaha ka ah banka adduunka uu sheegay in stepka ugu horeeya oo hadda la sugay inay tahay in International Development Association ay meesha ka qaado macnaha markii hore waxa saarnaa ban wax mashaariic oo Soomaaliya laga saacidi jiray ma jirto wax meeshii marka ay arintaas ka baxaysaa hadii ay noqoto in shuruudahaas la buuxiyo marka dalal badan Soomaaliya saaxiib la midda kale saaxiibtinimo kaliya ma 180 dal sanduuqaasi waxbay ku shubaan marka waxa la fiirina dalka markaas baahidaas qabo si dalkaas loo saacido oo u soo kabto uga soo baxo duruuftii marka ku jiray tanna marka taas ka mid tahay dib u noqosanataa hadda maaha lacagtii 300 intaas oo milyan in ay Norway macnaheed bixisay oo ay hadhowdi maxaan ku iraahdaa lacagtaas meesha yani ka oleyso laakiin waxa way system la marayo oo lacagtaas lagu shubaya dib bay laakiin Norway lacagteedii u helaysaa waxa kale oo aan rabaa inaan idin sheego ogaada Soomaaliya waa dal barwaaqo Soomaaliya waxay leedahay shidaal waxay leedahay macdin kala duwan waxay leedahay xoole waxay leedahay muus waxyaabaha Soomaaliya adduunka ugu tartamayo khayraadkaas waa adduunkana ogaada ma jiro cid adiga wax ku sameynayso oo aanan iyadana dan aan ka lahayn laakiin dantii waxa la rabaa adigana inaad taadi fushato iyadana waxa aad u fulin kartid inaad u fulid ogaada dal kasta haddaan soo qaadano wadanka Turkiga وودنك Soomaaliya si weyn u saacido oo dhinacyo badan ka saaciday haddana waxa way ma dhahayno wana jecel yahay ma dhigi karo macnaha jacayl kaliya ma wanaagu noo sameey laakiin haddana interest ogaada waa jiraysa dal walba wuxuu leeyahay interest uu ilaashado oo uu mar walba u fiiriyo marka dalkan way lahaan karaan dalkaas uu awal ka dhigan karaa berito inuu ka helo qandaraasyo haday tahay maxaan ku iraahdaa dhinaca macdinta haday tahay dhinaca shidaalka haday tahay dhinaca xoolaha dalka waa soo kabanaya waxa la arkayaa Soomaaliya soo socoto oo soo noqonayso beesha caalamka soo noqonayso oo hadda waxa arkaysaa fiiri waxbaan intu saa hal example ana intu saa Soomaaliya waxay ahaan jirtay meel laga samray marka ay aniga waxaan ka soo jeedaa media oo aan nolosheeda inta badan ku qaatay waxa way markaan artikalada arko oo media qori jireen iyo maanta waxay qorayaan waa kala duwan tahay runta markaan aan ka sheegno shalay waxay qorayeen dal burburay dhintay aan soo noqonaynin tusaalaha oo ah dalalka burburay kuwa ugu liito oo dib dambe aan macnaha aan u soo kabanay hadda waxa arkaysa waxa laga hadlayaa shidaalka laga hadlayaa waxa laga hadlayaa macdinta Soomaalida ay leedahay waxa laga hadlayaa badeeda khayraadka ku jira laga hadlayaa waxa arkaysa marka in Soomaaliya ka soo baxayso godkii ay 30 sano ku jirtay ka soo baxayso waxayna ku xiran tahay sida dadkeena ay artaas u fahmaan ma jirto cid walba waxay rabtaa fiiri oo dal kasta oo dunida jooga wuxuu danaynayaa inuu wax ka helo ma garad hadda maxaa haddaan soo qaadano dalalka qaarkood waxay ku leeyihiin siyaasadii oo gudaha Soomaaliya ku leeyihiin oo waxa arkaysa inay siyaabo kale yani u faragelinayaan waxa soo dhan waxay keenayaan waa dalkan waa wax lagu tartama dadkiisa marka waa inay fahmaan dalkan inuu yahay dal qayr leh oo barwaaqo Ilaahay oo ka duwan dunida intiisa kale maanta waxa loo tartamayo oo dhibaatadan aan noo marsiinayo inay tahay inaan dalkeena aan baylahino oo aan macnaha aan sameeyno marka waa ku dheeraaday iga raalaada laakiin ninkaas su'aashu weydiiyay intaas aan dheeray professor Yaxya waa u mahad celinaa waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii
أنا هذا السؤال ما كان ودي أو قصة ما كان ودي كلام ويقول يدين كرتا ويقول يدين كرتا go ahead بس أنا أيوة في كذا كلينا فعدني أزوره في هذا الشهر نقع السنة هي ما تبي تلقونها وين أنا غيرها مصور كمان وفي عين أنا أكلم مثلا باستور أفرد سنة قدام برسي مين رايحين Soomaaliya waxay ka mid tahay beelaha xuquuqda oo iswaasoo badan ay lahayn say isu qabanaysa waa soo qabanaya iyo waa ku iswaasoo badan say isu qaban karaan basto أنا ما صدق أنا أسمع قبض هذا مركز رابورك أقرصه أو international financial institutions كمركز أقرصه واحد الماما يعني دولة مركي برنامج كان الله بالله سأنا إذا شيء يحب الله حسن شق كدب دولة ويسي أم بقاطي ميل في عن سوق جرسيسي وحي الماما يعني وحي لقبتي آد أمهم سنة وحي هيد وحلي هذا قمتي اسكو جيجين معناها إن باجت كدولة سي صح الله معموله إن انستيوشنات الدولة أي سي صح وشقيان أو لا إلالي مدهايو مجرو مسق واجعل عاوة وحيابي أنا أن ربي أو إن وزيرك لفتي ذا ويديو أو سؤالها سيدي يركها وحكم ده وزير محك قبضتين أنت كوساب سن مسق اللي هذا ولي international organization كان أو ما ركت ترجري أو إلالية أو محن كل هذا ولي وحولي هاي وحيكون جران كالنت دم لكن وحن كهلنا رجلة وحاب موقع الرجل waxaa muuqato in Soomaaliya ay ka soo kabanayso waxaa muuqato in Soomaaliya ay barwaaqo tahay shalay ma loo sheegin barwaaqadaas ma loo sheegin laakiin maanta waxa arkaysaa shirkado aan weligood Soomaaliya aan soo qaadin waxa timid shirkada hadda labadii ugu dambeysay wasiirka batroolka uu sheegay Exxon iyo Shell weligood Soomaaliya ma soo qaadin hadda laakiin waxay leeyihiin offshore-ka Soomaaliya waxa ku jiro shilal fara badan ku jiro waxa laga hadlayaa dhulkan Kenya anaga naga dhaxeeyo oo aan isku haysano shilal badan asagana ku jiro يعني waxa laga hadlayaa macaadinta kale oo qiraadka Ilaahay ku manayst waxa soo dhan marka laga hadlayo marka waxa way shalayto meeshii lagu arkayay maanta ma joogtid laakiin dadka Soomaalida la rabaa inay fahmaan shalay inaan maanta aanan joogin inkastoo waxa laga shaqeynaya oo dalal badan ay ka shaqeynayaan inaad adiga isku noqoto inaad burburto inaad adiga isdisho inaad adiga kala qaybsanto inaad adiga maamul goboleed noqoto waxa soo dhan waa laga shaqeynaya dadka Soomaalida marka waxay u taalaa inay ayahooda arkaan inay arkaan waxa loo dilayo waxa loo baabi'inayo qeyraadkan wadankan Ilaahay ku manaysto haday tahay jawiga ka fiican tahay caalamka oo markay arkaan dadka ajaanibta oo la sheekaysato aniga safiiran aha marka la sheekaysato nin oo safiiraha oo Suudaani ah oo aan marar badan sheekaysan Soomaaliya yimid Soomaaliya yaqaanay يعني aad uga xumaaday Soomaaliya duruufta ay yani ku jirtay waqtigaas marka maanta marka waxay taagan tahay war meesha waa ka nimiday aan u istaagno dalkan inaan badbaadsano aan u istaagno dalkeena inaan u shaqeyno marka waa maasan tahay gadi telefishinka dalsan iyo oksina telefishinka dalsan iyo Some News iyo idaacadda iyo TV-ga kulmiya waxyar waxaan rabaa inaan magaca madasha magaca madasha in aan ugu mahad celiyo telefishinadaas tooska live-ka uga sii deynayay barnaamijkan caawa iyo doodii iyo su'aalihii aan maaragtay ku qaada dhignay aadaan ugu mahad celinaa sidoo kale baraha bulshada iyagana tabinayay oo la socday barnaamijkan oo runtii barnaamij fursad u siinayo dadka Soomaaliyeed in ay doodo iyo aragti kala duwan ay isku dhaafsadaan waxaan rajaynaa oo mar kale aan ku celinaa in dawladdu ay ku dhiirato in ay dadkeeda hortimaado dawladdu dadkay dawlad u tahay inay hortimaado su'aalaha ay qabaan u jawaabto inay dadku tixgeliso baahida ay shacabku qabaan waxay u baahan yihiin war helaa tala helo dawladda marka waxaan leeyahay kuraasta ku fadhidaan shacabka ugu fadhidaan dadka hor imaada la hadla u sheega waxa ay qabaan way tabanayaan waxay taas abuuraysaa kalsooni in dawladda lagu qaado laakiin haddii aad habeen walba intaad lagu ballamiyo aad ka dhuumato wax kalsooni xuma imaanayso marka waxaan leeyahay dawladdu arrintaasi waxa ka qabato ha timaado hala doodo dadka yaxayga oo kale caawa hadday dawladdu fadhido waa isu dayn lahaa laakiin dawladdii meesha ma fadhido
marka waa in aan maaragtay positionkaas intaan qaadano aan kula doodo waxyaaba dhacdo oo fara badan oo aan akhriye aniga iskama iman intaan meesha iman waxaan soo akhriye wax kasta oo ku saabsan Soomaali debt reliefkan soo akhriye wax kasta oo aan idin sheegayn oo waxaan hubo oo aan ogahay oo aan akhriye marka waxaan rabaa inaan saaxiibkay Yaxya siiyo oo aan ugu dambeyntii bal isagana wuxuu ku darsanayo ku darsano بسم الله الرحمن الرحيم waxay arrinta Norway hadaan ku noqdo waxna meelaad ka akhrisay waxna dad ka maqashay waxa aniga toos ee dhaxbara idin sheega waxa qaar wax personalkaaga waa experience-ga in lagu qaybsado dadka caaba u arka qaar ku dhaw waa isfaalina qaar ku dhaw qof waxna waa la iskiira ay xogaa fanka naga badisay ma waxa jira ku sheega hadii runtii qofku dhibay gooni waayo Nairobi anoo joogo waxa ay soo wacday naag hayna maxaa عتر سفير كالنرويج الصومالي حساب سنة يا تلف كيف كسيما يا نيروب جو تواليشة أنا أسألك لا رواه أنا حين سفير وابل بدلي أنا اللي سو بدليتل ولي ورقدي أغوصك بوجي سائل الدولة وما جينيتل وزارة دي بدأ وحيتل أرق نكاس أنت حاجة هذه عارو ما ستة شهور وضع ماشي اللي يسكي اليوم وعارو هذه وعصبته واكو قابلة لكن هبل أو النرويج أو سفارة دين الجوج أو النرويجيان هذول كل صعد مقوي معنا إما صار عايتل بار ليرا مدترين يعني وحصتا أو كويا الجرجر يوي مالتين إذا هالعلوم حكينا ولا تيتبت وعايق في ليس أنا سي تعبانة أرضو حيسوي سنو ويرو بدار رو لابتوب وتو جاكا وتو تعبانة أو كوبيس وحسيسين أو تبي هذه بيتي أنا جوا إركي الوصول شيء حارت وحاول هذا كمواد الصومالي ساو هذه لها ما إلى الدولة هذا إنه ولا غاص وجين وما دليل يسوت ودك هو أمانة يجينا أنت الدم بينا قال له حد يموت ساو درين سنة أو شيء قالوا الصومالي حكسوا عبيس مركز كور بدأ عليه سيدير سنة عمل الجو نرويج تجي جامعة وحي جيس وزارة دارمات دي بدأ كوربتين غايب تا أفريقيا نيكو مدحنا او تغلو انا سو دوي اول ولدي حفيسه دربي waxaan arkay maapka Soomaaliya oo dhan oo ku yaalo gobol waa si qeybisa oo akhrinay waxa ku arkay tuulada aan ku dhashay waligeey maapku ma arkay marka soo noqdaa waxa qoray Norway inay danaynayso Soomaaliya iyo shidaalkeeda tuuladaas yar oo ku arkin maapka oo waligeey maapku arkay waxa ku arkay darbiga wasaaradda arrimaha dibadda oo Norway iyadoo ku dhagan waxa ay muuqatay marka in Soomaaliya xataa gobol daraasad xoog leh ka sameynayso habeenkii kale in Soomaaliya talaf iyo soo dir aad u maleysay in masku dhagaya ila dagaalay wasaaradda bay ka sheegtay goormeetagt adma wasaaradda shaqo kule ee way maadaara capital bari nasiib wanaag darbiga iyo waxa iyo ninkii agaasimaha Afrika oo ila joogo waxa dhamaan sawirtay badana filimkan fiir taariikhda ku taala fiir horta gaalada waxa kaaga daran marbar Soomaaliya loo meesha geeyeen oo madaxa loo salaaxo baasaboor inuu guudan la siiyay oo gaalada ka daran warshakab kule dadkiina marka qurba joogto ma maraan waxay qurba joogaan nacabta war kuma nacbi shaati kula iska gashay mar tan kale caawa wasaaraddu waa maqantahay corruption laga hadlaayay dawladdu waa inay dakhligeeda oo miisaaniyadeeda ka muuqdo kharajka ay bixinaysan inuu ka muuqdo waxaan weydiin rabaa caawada budgetka 2020 waa aragteen kuma jirto lacagta hawada naga soo gasho dhan waa maqantahay 1 milyan iyo 700 oo hadda la ku siiyay kirada dhulka oo Holland miisaaniyada waa ka waayay lacagna loo shiinaan uga ijaaranay maraakiib laysan aan ku siinay kuma jirto Kuwait oo miisaaniyada kabto kuma jirto dakhliga dawladda ay sugay sanadkan marka afartaas ay tab inay ka muuqdaan ay ahayd ninka aan weydiinaa caawa maqaya marka waxa ka codsanaa afartaas qodob waxay ahayd dakhli dawladda soo galay inay ku jiraan miisaaniyada dawladda hadii laga waayana corruption waa meesha ku baxdaan loo sheego ugu dambeystii waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkii waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha barnaamijka
oo inta badan aan runtii ku ixtiraamayo sida ay barnaamijka uga qayb galaan ra'yadooda siday uga dhiibtaan waxaan idin leeyahay dhammaantiin dadka nagala socdo telefishinada som news dalsan iyo tv-ga iyo idaacadda kulmiye waxaan idin